aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bari dhageysan doona hadaljeedinta madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. marka koowaad waxaa sharci darro weyn lagu tilmaamay inuu Farmaajo hal aqal kala doodo doorashada guud ee dalka isagoo inkiraya aqalkii sare. dalkuna dastuuriyan doorasho kuma geli karo go'aan hal aqal ka yimid. waxaa kaloo fasiraad sharci u baahan sida madaxweyne muddaxileedkiisu dhamaaday uu dastuurka ugu fasaxayo inuu hadal u jeediyo baarlamaanka. intaa marka laga tago kulanka bari ee aqalka hoose waxa wali xambaarsan yahay guux ku wajahan hogaamiyaha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. waxaa jira tuhun ku saabsan in Farmaajo iyo Mursal ay rabaan inay abuuraan xiisad cusub oo siyaasadeed. xildhibaanada qaar waxay sheegayaan in Farmaajo uu rabo inuu baarlamaanka u sheego in ra'iisul wasaaruhu dhinac isaga riixay mashruucii doorasho ee ay soo gudbiyeen 12 bishan kadibna uu yiraahdo anigu idinka ayaan idinku soo celiyay ee go'aan gaara halkaasna uu kaga baxo oo markaa kadib uu Mursal isku dayo inuu codka kalsoonida u qaado ra'iisul wasaaraha. waxaa jira walaac weyn oo arrintaasi la xiriira. waxaa kaloo xildhibaanada qaarkood qabaan in bari Farmaajo la dhageysan doono balse ay dhici karto inuusan baarlamaanku go'aan gaarin oo dib loo dhigo go'aan gaaristooda si uu Farmaajo uga fakaro gorgortan kale oo cusub. haddii uu Farmaajo u dhaqaaqo wadadaas la hadal hayo waxay dad badani qabaan inuu toos isugu dhamayn doono siyaasad ahaan. dowlado kooban oo wali aaminsan inuu xal keeni karo ayaa la aaminsan yahay inay ka furan doonaan. Rooble oo haddii xaggiisa loo soo dhaqaaqo ay adag tahay inuu aqbalo mashruucaas ayaa isna noqon doona furin cusub oo ku furmi doonta Farmaajo oo waliba kaga cuslaan doonta midii mucaaradka. xiisadaha amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay mar kale cirka geli karaan taas oo wax walba galaafan karta. Rooble iyo xildhibaanada taabacsan ee u badan kuwa ka soo jeeda magaalada Muqdisho waxaa laga soo xigtay inaanay xitaa waqti gelin doonin inay hor istaagaan haddii uu Farmaajo rabo inuu bari abuuro xiisad cusub oo uu dalka geliyo fowdo. sababta aanay waqti badan ugu bixinin arrintan waxay ku sheegeen inay aaminsan yihiin inuu Farmaajo siyaasad ahaan toos u dhiman doono haddii uu tallaabadaasi ku dhaqaaqo bari. dhowaan gudoomiyaha waqtigu ka dhamaaday ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo 57 xildhibaan ayaa ku dhaqaaqay mashruuc sababay inuu dalku dagaal uga hadla galo lamana yaqaano inuu mar kale Mursal sabab u noqon doono in gacanta la isula tago oo uu dhiig daato. Farmaajo waxaa lagu eedeynayaa inuu wali ku mashquulsan yahay ciidan aruursi iyadoo saraakiisha ciidanka qaarkood ay sheegeen inuu rabo hal dagaal oo kale. sidoo kale waxaa jira walaac ku saabsan in bari la heli waayo xildhibaano ku filan inuu furmo galuhu si loo dhageysto Farmaajo maadaama ay xildhibaanadu badi dalka isaga baxeen markay ciidamada diidan muddo kororsigu soo galeen gudaha magaalada Muqdisho. si gaar ah xildhibaanada tirada yara ee saxiixay mashruucii muddo kororsiga ayaa badi dalka ka qaxay iyadoo la sheegay inay ka baqeen inuu beegsi bilowdo haddii ay dagaaladu sii socdaan. dadka qaar waxay leeyihiin waa adag tahay in bari la helo xildhibaano mar kale sabab u noqda inuu dalku fowdo galo marka tixraac lagu sameeyo wixii ka dhashay go'aankoodii 12 bishan. dhinaca kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa uga digay xubnaha aqalka hoose inay bari dalka u horseedaan qalalaaso cusub. guddoonka golaha shacabka ayay ugu baaqeen inay si weyn uga fogaadaan inay majaxaabiyaan dadaalada socda ee lagu baajinayo colaadda iyagoo Farmaajona ku eedeeyay inuu caqabad weyn ku yahay inay doorasho ka dhacdo dalka. kooxda ku dhowdhow madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday waxa ay sheegayaan inuusan Farmaajo sidii hore carcar ugu ahayn muddo kororsiga oo uu rabo in loo laabto teendhadii Afisoni laakiin waxay leeyihiin wuxuu ku dagaalami doonaa inaan waxba laga bedelin heshiiska oo sidiisa lagu saxiixo iyo inuu sii maamulo ammaanka dalka. haddii uu sax yahay warkay sheegayaan kooxdiisu mar waa badbaado marna waa waqti dheeraysi iyo xujo cusub. maxay kula tahay?